xasan cali kheyre ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa maanta xafiiskiisa magaalada Muqdisho waxa uu ku qaabilay Sheekh Maxamed Ibraahim Cali oo ku magac dheer Kenyaawi oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo maalmahan magaalada Muqdisho ka waday barnaamij loogu magac daray Cafi Walaalka. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa sheegay in Sheekh Maxamed Ibraahim Cali Kenyaawi uu kala hadlay ololaha sheekhu uu ku doonayo in bulshada Soomaaliyeed ay isku cafiso, wuxuuna ku dhiirigeliyay inuu si laba jibaaro waajibaadka ka saaran culimada Soomaaliyeed in baraarujin ay ku sameeyaan ummadda Soomaaliyeed oo dhibaatooyin kala duwan ku soo jiray muddo fara badan. Kulanka waqti badan soconayay saxaafadan dibadjoog ee ka ahayd ayaa markuu soo gabagaboway kulankaasi waxaa warbaahinta la hadlay Sheekh Maxamed Ibraahim Cali Kenyaawi oo sharaxaad ka bixiyay kulanka uu la qaatay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo waxyaabaha ay ka wada hadleen. waxaan imid ilaahayna keenay waa xafiiska ra'iisul wasaaraha Xasan Kheyre si qurux badan runtii waa la ii soo dhaweeyay anoo waliba xambaarsan magaca culimada diinka Soomaaliyeed. runtii waxaan ka wada hadalay waa masiirka iyo halka loo wado iyo halka la doonayo waliba in la dejiyo wadankan. waa runtii waajib diini ah in culimada diinka ay runtii ay la hadlaan oo ay u yimaadaan u naseexeeyaan madaxdooda, sababtoo ah ilaahay baana runtii nagu guubaabinaya, rasuulkaa nagu guubaabinaya, islaamkaa nagu guubaabinaya oo dhahaya diintu waa naseexo weeyaan. diintan yaa xambaarsan? culimaa diinkaa xambaarsan. maadaama culimaa diinku ay xambaarsan yihiinna yay ugu naseexeynayaan. waxay ugu naseexeynayaan waa culimo, waa madaxda, waa shacabka, waa mucaaradka, waa insaankan. maxaa yeelay diinta waxaa loo soo dejiyey waa insaanka. waxaase dembi ah, waxaanse ilaahay ogolayn in diintiina aada xambaarsan tahay dadkii quudan lahaa, lagu quudin lahaana inay ka qatan yihiin. culimada inay garab istaagaan, naseexa inay ula garab istaagaan madaxdooda waa wax aad iyo aad u wanaagsan. eeg xabiibkeena sala allahu calayhi wasalam iskaba dhaaf dadkii muslimiinta ahaa ee uu la joogaye diinta naseexadeeda wuxuu la garab istaagay gaaladii. waa ku waraaqaha u qori jiray, waa ku u tegi jiray, waa ku saxaabadiisa intuu u diro iyagoo wufuud ah waa ku u tegi jiray oo ay u geyn jiray oo u diri jiray. marka diintan waa naseexo. waxaan aad iyo aad ugula talinayaa una runtii dhiirigelinayaa culimaa diinka xambaarsan diintan. dadka kale ee maaragtay xataa cuqaasha ah, mutacalimiinta, muthaqafiinta wax soo bartay, cilmigoodaas ay barteen in ay la wadaagaan uguna naseexeeyaan madaxdooda. si qurux badan baa runtii la ii qaabilay. xaba adduunye iyo hanti adduunyana kamaanan soo raadsanin, xaq ay nagu lahaayeen ayaanu runtii u gudbinay. si qurux badanna maaragtay waa ay u qaateen. way u baahan yihiin madaxdu. waa dad runtii maaragtay adeegayaal ah, waa adeegayaasha shacabka weeyaan. culimaa diinkuna waa adeegayaasha shacabka weeyaan. waxa marka loogu adeegayo shacabka oo ay madaxdu ugu adeegayaanna waa in runtii culimaa diinka ay zaad uga yeelaan oo ay uga dhigaan madaxdooda. waxaan leeyahay culimaa diinka dal iyo dibad bay jooga, ha ka hakranina. meel fog iyo meel dhowba uga soo naseexeeya madaxdiina. runtii waxaan arkay halkanna aan ku arkay, saan shalay u arkay qalbiyada wanaagsan ee Muqdisho. waxaan arkay runtii madax qalbi wanaagsan oo runtii ogol, naseexada ogol. ilaahayna waa u baryeynaa runtii inuu ilaahay la garab galo. xil culusna way qaadeen. xilkaa culus kuwa ka soo baxa allaha ka yeelo, kuwa ummadan hore u dhiga allaha ka yeelo, kuwa cizigii ummadda lahayd, qabkii ummadda lahayd soo celiya allaha ka yeelo. runtii waxaa wax lagu wada qaban karaa waa wada jir, ayaa wax lagu wada qaban karaa. madax iyo shacab wada jira ayaa wax wada qaban kara. waxa naga dhaxeeyana waa qarankan inaan ilaalino waa waajib diini ah. wada jirka iyo midnimada inaan ilaalino waa waajib diini ah. aynu wada ilaalino
ilaahayna waxaan ka baryayaa wadankan cizigiisii allah soo celiyo ku noolaada meel walbo aad joogtaan Soomaaliya cizi iyo sharaf ku noolaada. shalay ayay ahayd markii muxaadaro ciwaankeedu uu ahaa cafi walaalka uu ku soo bandhigay garoonka Stadio Konis degmada Cabdulcasiis ee magaalada Muqdisho Sheekh Maxamed Ibraahim Kenyawi waxaana ka qayb galay muxaadaradaasi mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo shacabka ku dhaqan degmooyinka gobolkan Banaadir. Cabdiraxmaan Waaberi, Radio Daljir, Muqdisho.